asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteena ku xidhan janalkeena hoyga bulshada ku soo dhowaada mowduuceena maanta fadlan haddaad janalkeena ku cusubtiin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana maanta asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada mowduuceena maanta waxa uu ka hadlayaa Nigeria. Ma maqashay Nigeria? Haddaadan maqlin nala soco fadlan. Federal Republic Nigeria, the most biggest economic African and most population. Waa dal dhinaca galbeed Afrika, gacanka Ghana, waa badweynta Atlantic, waana federalism. 36 ismaamul goboleed ayaa dega, caasimaduna waa Abuja. Magaalada ugu dadka badan waa Lagos, wadanka dimuqraadiyad caalami ah, waana dalka ugu dadka badan Afrika. Dalka toddobaad ee dunida, 96 milyan oo qof ku nool yihiin weeye. Dhinaca kalena wadanka 23aad ee alaabta ugu badan dibadda uga timaado oo lagu qiyaaso 1.69 trilyan, waana wadanka ugu dhaqaalaha badan guud ahaan qaaradda marinka Afrika. Marka lasoo gaabiyo Nombi loo yaqaano 3.9 bilyan, waana wadanka 31aad ee dhaqaalaha ugu badan caalamka. Qofka Nigeria dakhligiisa waxaa lagu qiyaasaa 2.5. wadanka waxaa dega qoomiyado kala duwan oo gaaraya 250 qoomiyad ah. Qoomiyadaha ugu ballaaran waxaa la yiraahdaa Hausa, Igbo, Yoruba, waana kala af, kala dhaqan, kala diin iyo sidoo kale luqadda rasmiga ah ee lagaga hadlo waxaa ka mid ah English. waxaana jira luqado badan oo muslimka ah 50%, halka Kiristaankuna yahay 40%. Koonfurta dalka waxaa dega Kiristaan, xagga waqooyiguna uu dega Muslim. Nigeria waa wadanka 12aad ee xagga wax soo saarka shidaalka adduunka, waana dowladda 8aad ee dhoofinta shidaalka, waxayna ururada OPEC ku biirtay 1971. Dhaqaalaha shidaalka wuxuu door weyn ka qaataa dakhliga dowladda, 40%. Dadka Nigeria 30% waxay ka shaqaystaan beeraha, inkastoo wadanku yahay ka ugu dhaqaalaha badan Afrika. Argagixisada sida Boko Haram ayaa ka dagaalanta waqooyiga Nigeria. waad mahadsantihiin. Fadlan asxaabteena qaaliga ah, si aad noola socotaan barnaamijyada aanu soo gelino janalkani, fadlan subscribe saar, share noo samee si aan asxaabtaada kale u gaadho. Waad mahadsantihiin saaxiibayaal.